dad badan ayaa xujo ka dhigta farxad ma gaari karno haddii aanan haysan hanti. hal su'aal ayaan weydiin lahaa dadkaasi. dad badan ayaa faraxsan ma iyagoo hanti agtaala ayay dhasheen oo ay adduunka imaadeen? waa maya jawaabtu. qofna dhaxal kuma helo farxadda, qofna looma ballan qaadin farxad joogto ah. haddaba farxadda iyo hantida waxaa horeeya farxadda. waxa ugu qiimaha badan ee aadanuhu gaari karo waa in uu ku sugnaado farxad iyo raynrayn, waqtigiisa ku qaato kalgacayl iyo wanaag si ay u noqoto mid ku reebta xusuus qurux badan noloshiisa inta ka dhiman, halkaas oo uu kaga tago murugada iyo calolyowga uu la kulmo marmarka ay isyeelan waayaan waxa uu doonayay iyo waxa uu ka helay adduunka. farxadda sideedaba dukaan laguma iibiyo, qofna lagama xado, mana jirto meel lagu tilmaamo oo aad ka soo helaysid. laakiin waxay ku xiran tahay adiga iyo hadba sida aad u wajahdo duruufaha nolosha ee kala duwan, habdhaqanka aad la dhex joogtid bulshada iyo jawaab celinta aad ka bixisid caqabadaha isdabajooga ah ee kasoo food saara habeen iyo maalinba. haddaba muuqaalkan waxaa idinkugu soo gudbin doonaa dhowr qodob oo haddaad joogtaysid kaa caawinaya inaad farxad iyo qalbi deganaan ku joogtid abidka. cabsida iyo cibaadada alleh waa furaha farxadda iyo liibaanta, iftiinka iyo aakhiraba. haddii aad noqoto qof alle ku xihan, cibaadadiisuna ku dadaala, wuxuu farayna qaataa, wuxuu ka reebayna ka dheeraada, waa hubaal wax kaa dhiman maba jiraan, qalbigaagana wuu xasilayaa. oo miyaadan maqal aayadda qur'aanka ah ee alle subxaana wa tacaala yidhi, miyaanay xuska ilaahay qalbiyadu ku xasilin? in la murugoodo ama la faraxsanaado waa iska caadi marka ay wax qaldamaan. dareemadan waxay badanaa la tagaan waqtigaaga, waana ka soo ficnaan. haddii ay dareemadani aad u daran yihiin oo ay saameeyaan nolol maalmeedkaaga in ka badan 2 toddobaad, waxaad u baahan tahay daaweyn.